ويا مرشال كورن درينكaaga waxaad dhaliso gool waqti muhiim ah ee loo baahnaa yimid والله horta shaqada noo dhiman horta ma dhawa laakiin goolkan hadda aan laasiga aan ilaahay aniga isaalay waa goosh maanta aan ku helnay 3 dhibcood dadaal badan aan subanaadan ugu faraxsanaa ugu dambeeyna 3 dhibcood ku helnay waya 4 daqiiqo lagu diray ay ka faa'iideysatay sidee kugu suurta gashay in kubadaas ka faa'iideysato والله horta xiliga geerida ahayd dadaal badan iyo anaga isdhiirgelin dhaxdeena naga imaad ciyaartooyda inaan ama in nolo saaro ama inaan gool helno dadaal badan insha Allah waan helnaa alxamdulillah ma aaminsaneed inuu imaan karo maadaama pressure xooggan saarnaa kooxda goolka barajada ka heshay difaaceedu aad u xoogganaa والله ها waxaad ka dareemi kartay qaabka anaga hamigan oo ahaa guri badan aan ooga jiray midkan inuu gool helo xataa difaac Allah ka dhigay muhiimadana ahayd waya waxa la arkay macalinka oo fariimo badan ku diray oo banaanka taagan maxaa kamid ah fariimaha iswadaarsanayeen waxay ahayd in uu dhahayay waxaan waa qamaartameena inaan gool helno ama loogu daro hore u socdo gadaal ha u noqon rajadiina kooxda intee gaarsiinta hadda booska saddexaad soo gashay والله horta kulamo badan dhiman aan ku tigsan karno Realka maadaama aan kulamo horena soo dhumanay rajadeena 100% waa insha Allah ilaa kulanka ugu dambeeya ka gaareen kamara jadagana ugu dambeyntii dhanka goolalinta oo lagaaga bartina tartan xooganaad ka gashay xoogaa sanadkan inaad ka gaabisay muddo si fiican ha sanadkan in badan kulamo badan maana safan waxaan dheelayaa waa iska yarada ama bedel ku yimaado sanadba waa si sanadna way ku saaranta sanadna way ka jirtaa marka sanadkan sanadkayga ma lahayn sanadkan rajadaada ma dhantaa inaad soo tartanto oo meel fiican in badan ilaa kulanka ugu dambeeya lagu maxay Realka la qaaday mar walba hamigayga waa inaan raga faaciga la tartamo